بقربهم السعادة والنجاة يا باحثا عن خير صاحب في الحياة. maxay tahay guushu? maanta waxaan soo gudbin doonaa 10 fure ee guusha. midda koowaad, qaado fursad. walaalkaygiiow, adduunkan oo dhan waa fursad, nolosha oo dhan waa fursad qaado. midda labaad, noqo qof xamaasad leh ama shucuur leh. wax walba aad qabanaysid cadaad shucuur leedahay waad xaqiijin kartaa. 2, baro si aad u jeclaan lahayd shaqadaada. qabo waxaad jeceshahay, jeclaa waxaad qabanaysid. midda afaraad, baro khaladaadkaaga, horumari guusha wixii kaa baaqday. midda shanaad, ha cabsanin. waxqabad la'aantu waa nooc ka mid ah cabsida iyo shakiga. baro kala madnaanta. sameey isticmaalka ugu fiican ee wakhtigaaga. qabo shaqo. midda toddobaad, qabo shaqooyinka adag marka hore. shaqooyinka fudud waxay daryeeli doonaan naftaada. ku adkaysigu waa tayada ugu joogtaynta badan horumarinta guusha. waxaad go'aansataa farxaddaada, taasoo ay xukumi doonto maskaxdaada. xusuusnow shay kastoo aad qabanaysid wuxuu dirayaa fariin. go'aanso fariinta aad rabto inaad u dirto adduunka. barnaamijkeena maanta intan ayaan ku soo gabagabayn doonaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. لم يسلكوا دربا سواه فدربهم درب الدعاء. تبعوا سبيل المصطفى الهادي الأمين خير الخلائق وهو خير المرسلين. وتمسكوا بكتابهم وبآيه عملوا به